waxaan leeyahay isku salaamaya salaamta islaamka akhyaarta ka soo qayb gashay ee martida ah iyo akhyaarta kala diyaar garaysayba xafladan qiimaha leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal horumar ku horeysa musharaxnimada macalin maxamed Somaliland waanu sana hore uga aqbalay markaa waalidka aqbalay waa la aragtaano maanta xafladani xafladu way ka duwan tahay waxaanu ka raysan caawa caaqiliintii baan ka raysan waqaashi baan ka raysan waa ma naqshay macallimiin iyo arday iyo aqoonyahan iyo ayaa maanta soo bandhigay musharaxan khayrka qaba waxaana weeye annagu cudahaan dadaalkii aan u galay Soomaaliya wax noqoto talaabooyinkii aan gacan ka geysanay ka mid tahay marka laga bilaabo dagaalkii sokeeye ee ku geysanay guddi nabad ahaan marka lagu xigsiiyo gacantan ku geysanay in asxaabta la furo oo qabiilka laga tago markaan ku geysanay haddana in la sameeyo diiwaangelinta qudada dagaal baan ku galay bilaash kuma iman hadda waxaan marinaa in dad wanaagsan la soo saaro aqoon leh waana bilowgii weyn taas baan ku guuleysanay maanta dadkaan soo sharaxayna waxaan jeclahay insha Allah taala boqolkiiba 80 inay noqdaan dad tayo leh oo maxamed la wada heer daadana isku dhow yihiin ayaan soo sharaxay insha Allah marka aqoon timaado ayuu horumarna imanaya aqoon daro waxbarasho la'aan ma keeno horumar maanta markaan geeska ka eegnay dalkeena dhibaatada weyn haysata wax weey waa aqoon daro at every level meel kasta haddaad eegtid ilaa wasiir ilaa director qof meeshii ku habbooneed oo aqoonta u lahaa fadhiyaa ma jiro marka waa inuu iska fadhiistaa wuxuu soo kordhiyaa aanay jirin 3 saacadood shaqeeya 9 ilaa 12 iyo barka ayuu iska fadhiyaa wuxuu soo kordhiyaa ma jiro taasi waa ta keentay in maanta ay baylahaasi timaado ka hadisayna tacliinta waxbarashada annagu waxbarashada habeenkanu doonayna in barnaamijka doonay saddexdii musharax hadduu dadku u dhaga leeyahay de mashruucan keena waxa tacliinta kale waxaan leeyahay boqolkiiba 7 budgetka gelin hadii la yiraahdo caafimaadka waxaan gelinaa 17 labada ugu muhiimsan islaasi ahay waxaan doonayaa in macallinku badka isku ka shaqeeya inuu noqdo macallinka uu ka mushaar bato ka DG-ga oo noqoto tacliinta wasba macallinimadu meelo soo tartamo inay noqon meesha qofku uu noqdo shaqa kale waayay inuu ku maararo inuu noqdo doon waxaan doonaynaa inaanu magaalooyinka ka baxsan caasimadaha macallimiintan geelina inay noqoto la siiyo allowance dheeraad si uu macallin tayo leh aanu ku gaban hargay magaalada waaweyn oo dhanba waxaan doonaynaa caafimaadka inuu sameeyno caafimaad guura oo xoolaha iyo miigaba kala baaris ku soo bilaaba oo cidii markaa keenin u baahan halka ku daweeya cidii kana u soo qorada dhakhtarada keenan doonayna insha Allah taala ma xoolahooda waxa loo ma jeedinay horumarku ay joogay horta ilaahay soo baxbay maanta waxa la ilaahay joogay horumarka loo footay aqoontaana aqoon bay wax ku noqon karnaa aqoon marka walaalayaal wuxuu noqon doonaa dhalinyarta keeni doonta mooshinada ummadda wax u tariya maanta caafimaadkeedu waa commercial qofka dumar ah ilmaha lagu soo saaraya 560 ilaa ay dhiibto oo waliba laga qadimo laga foolin maayo
hadduu israa iska eego waxa iska iskaan geli kalsooma waxa uu qiimo yar isbitaalka guudood $260 dadkeena wada timaanintii $2 baa soo gala boqolkiiba 80 poverty line-ka boqolkiiba 80 ba hoos ka maray inaga dadkeena umadeena wax regulation ma jiro oo ilaalinaya qofka shacabka reer Soomaaliland amba tacliin ku ilaalinaya amba barnaamijyada ka ilaalinaya amba dhakhtarka ilaalinaya clinic waxay noqotay dhaqaatiradeen biibitooyin oo kale si dukaanadii baa la wada furtay meel kasta clinic yar baa ka furan oo wuxuu doona ka qaadiyo dadka baylahdeen saasay u badantay insha Allah taala waynu baylah tiri doona insha Allah taala haway wala ilaahay baan siin nabad amni bay haysanaa maanta wada aragtay oo waxay nagu xeeran wadamada nagu xeeran oo dhan way karkarayaan inagu alxamdulillah rabbil alamin shukriga badana weeye waana isjeclaanaaba weeye wada xasiga iska dayna weeye halkan jamhuuriyadeena barakaysan ولو سوى هاجري دونا إن شاء الله تعالى ولو سوى هاجري دونا هذا الشاب دونا طوحة قرتي شريدة وقرتي جرما كوين شرائط كوه وين هيا سومانا الآن يا ذو الشيكين يسوي هو معجزة سومانا معجزة واحد قدرنا إنه فعل قدرنا إنه حق رب إله بين عليه فعل كي ما هينه فعل كي عن قدرنا يهرب مركي ده كان ورايا نصيب كينا فضل وهذه أيضاً وهم حسنا دليرتا معلمينتا يا أرجل وحلينا ما أنت نيجان محمد عدك كهرب بدل ما جبتوا لأن وحوي معلمين يا أرجل زماننا ونبى ما أنت يسويه له محمد كاشيل بكفر يا قبيل حكم فلماي أبتسموا ذو عينك إنجنير ذو وايس كقرو أنت بداخل ذو وايس كقرو ترى وايس كقرو ما شاء الله سميا أول إلى سميا reerahan waa laga tagay nabi maxamed soo baxay waa tiri qabiil waa uraya baalay ilaahay ay naga daweeyay qabiilka walaal ilaahay naga daweeyay waxa waa mahadsantiin suldaanka waa mahadsan yahay ardayda iyo marka Faadimo la isku eego way ugu soo bixi doonaa insha Allah taala Faadimo insha Allah Faadimo way eegi doonaa halka dhigtaabti yaashay wanaag doonaa insha Allah taala waxa وقريب كنت بقوي حال كيسي لا حتى يوام كيسي ديجان كان دوام بينه قبلنا إن شاء الله تعالى هرجيسي ولا ليه سلطانه ومتربولي تمويه هرجيسي مات ولا ديجي هو شيء جدي ولا نبوشي يبقى مكان هريرها لقى سووا تقول بيجي ولا يجيبون أنا قلت لكم وأنا ولا ليه فسوا تام كنا يوم أكيد شكل شرحنا يوم كتكشرحنا ما ديجان كشرحنا بس مرون كشرنا برامات وودنا الولية هي مجال الولية عاصمة الولية ساسا وحكومة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله